Guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee EACC maalmihii ugu dambeeyay dhowr ismaamul oo ismaamulada dalka ka tirsan waxa ay ka sameeyeen howlgallo lagula dagaallamayo musuqmaasuqa. Ismaamuladaas waxaa ka mid ah Countiga Garissa ee gobolka Waqooyi Bari. EACC waxa ay baaritaan ku haysaa 8 xubnood oo ka tirsan shaqaalaha dowladda hoose ee Garissa, kuwaas oo ku eedeysan in ay awoodooda u isticmaaleen si sharciga baalmarsan ayna ku lug leeyihiin lunsashada 1.2 bilyan oo shilinka dalka ah oo xoolaha dadweynaha gaar ahaan kuwa Garissa ah. Guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa waxa ay sheegeen in xubnahan ay ganacsi aan sharci ahayn ama sharciga aan loo marin la sameeyeen dowladda hoose ee Garissa iyagoo isticmaalaya shirkado ay leeyihiin oo ay iskooda u diiwaan gashadeen. Xubnahan baaritaanada haatan ay markaasi ku socdaan dhammaantood waxaa la geeyay xarunta guddiga EACC ee magaalada Garissa, waxaana halkaas looga qoray warbixino. Inkastoo dib dambe laga soo daayay, haddana weli baaritaano ayaa ku socdo. Arrintan waxa ay ku soo aadaysaa ama imanaysaa iyadoo dhowaan dulduleelo badan ay ka soo baxeen su'aalihii guddiyada aqalka sanadka ay weydiinayeen gavanaha Garissa Nadiif Jaamac, gaar ahaan dhanka maamulka iyo maareynta, siiba dhanka dhaqaalaha iyo xisaabaadka, maadaama ismaamulka ilaa xilligaas uusan lahayn xisaabiye guud oo si rasmi ah loola xisaabtamo. Need a cab? Order Faras. Get 10% cashback in form of Faras Miles. Convert your miles to airtime, data, or M-Pesa. Faras. Safe, affordable, convenient.